layaab male haddaanu qadaadweyn nahay walaalayaal waxaa naga soo hadhay buluug waayo haddii aanu qadaadweynay waxaanu aaminsan nahay calanka buluugga haddii aan bakada kuu saarnayn ama uuna dhexda kuugu xidhnay ama uuna dulaca kuugu xidhnay walaalayaalow isma sheegano soomaali ma tihidin af soomaaliga waa ka tagteen soomaalinimada waad ka baxdeen walaalama nihin waxba iskuma nihin waayo qofkii buluugga ka taga ee buluugga diida soomaalinimadii wuu diiday marka walaalayaalow calanka buluugga ee xidigta cad dhexda uga taallo haddii aadan wadan soomaali ma tihid adeerayaalow wax maydii sheega ninkii xamar nagu soo hadal qaada waanu xidhaynaa ninkii xagga soomaaliya nagaga yimaada waanu xidhaynaa ninkii DB World wax ka sheega waanu xidhaynaa ninkii berber soo hadal qaada waanu xidhaynaa ninkii imaaraadka afka la gala waanu xidhaynaa ninkii Itoobiyaanka wax ka sheega waanu xidhaynaa gabadhii dirac buluuga kusoo labisata waanu xidhaynaa ninkii shaar buluuga kusoo labisata waanu xidhaynaa wixii cirka eega xataa waanu xidhaynaa wixii ku riyooda iyagoo xamar xataa beri booqday waanu xidhaynaa wixii digir ama cambulo waxay u yaqaanaan qofkii cuna waanu xidhaynaa qofkii xataa macsarta qofka canjaarada ku darsada waanu xidhaynaa waxaan la wixii xaggan naga yimaado oo dhan waanu xidhaynaa annagu soomaaliya ma nihin af soomaaliga waanu bedelaynaa soomaalinimada waanu ka baxnay aqoonsiga si aan u helana cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa xataa waanu aadaynaa qadaadweyn hataa ayna soo daba gashana adeerayaalo jeel baan idinku ururinaa jeel ma nagarateen naga hadhoona nabadgeliya وارهي داينا روحان كويدية ودن كي وينو كلا قعناي لابا ودن بينو كلا نقعناي وينو كلا بحناي محاي كادا بردقاي وار سيديد ودنو شايغان كريسا adigoo qaramada midoobay laga aqoonsan adigoo wadan shisheeye ku aqoonsan adigoo wadanka doonto aan baasaboorka ku tay karin sideed wadan igu sheeganaysa aniga inaad aniga iga mid tahan wali madan ogeyn waar madax gaara anigoo leh mas'uuliyiin gaara anigoo leh iyo sharci gaara anigoo leh sideedii oran kartaa isku mid baan nahay oo hal wadan baynu wada nahay inaad dawladnimada aad sheeganayso muqdisho un bay ku taalaa muqdisho un baad wax ku tahay marka Soomaali weyn saad uga go'daa way adag tahay walaalo ayar iska toobadkeen caaqiyaro naga fakaday ha noqonine waar midnimada aad ku faanayso iyo Soomaali weynimada aad ku faanayso xagee kaaga timid yaa la yimid midnimada iyo Soomaali weynimada waxa ka timid waqooyi waayahay fikradda walaaltinimada iyo inaan isku biirsano in wadan quran noqono inuu midowno yaa la yimid waxaas oo dhan adiga la yimid oo xagga waqooyi bay kaga timid ilaa adiga go'day adigoo goosatay waayahay ma aniga goostay mise adiga goostay adiga goostay anigu saan u goosan midnimaduba aniga timid iyo walaaltinimadu iyo wadannimadu aniga timid ka goostay caaq noqday maanu adiga ahayn ee diideen inuu soo raaco sidee maxad ka wadaa inuu soo raacay inuu goostay maxad ka wadaa fancy markii wadankeennii aynu walaaltinimada ku dhisnay uu dictator soo galay wadankii xukun military ku qabsaday aanu ka saarnay annagu miyayna ahayn inaad aniga soo raacdo ma inaad iga goostay heedoodii diido wallahi warunta inaan adigu soo raacay niyo berigi markaas soo ikhtiyaar uma lihiinaan magacii markii hore aan inoo bixiyay Soomaaliya in anigu la imid inaan magacii bedeli karo ikhtiyaar u leeyahay illa markii hore magacaana keenay miyaan bedeli karin waad u leedahay ikhtiyaar oo bedeli kartaa magaca waayahay calankana laftigiisu miyaan markii hore aan la iman inuu bedeli karin waa runta waad bedeli kartaa waaye wixii aan anigu kuula imid sidee aniga igu caayaysa anaaba kuula imide inaad aniguna soo raacdo meeshaan maro una martamaynayn illa markii hore waad wadi kari weydo ana kuula imide runta wallahi ma dhaafniyo berigi inaan adigu soo raacayahay waaye hadaba jooji commentiyadan ay kaaga dhigtay un buluuga hadaadan wadan Soomaali ma tihid jooji waxano aniga soo raacana walaalkaaye dhinacan ku hagana mar nabada ku jirtay waarna aad armad lugooysaniyo ma lugooyaba ku hadhay 30 sano dagaal ba ku jirtaan ka maqnaaye anna 30 sano ka maqnaa nabad iyo nolol baan ku jiray maad aniga soo raacdo igu soo biirtay mise inta yar xaasidnimada maadaama muqdisho aad rabtay inaad iga maamusho badii hargeysa diidantay inaad timaado waaye imka calanka buluuga ee cirka u eegna waxa la ka imo waar calankan waa buluugo cirkaas u eegay daraadii aad ugu dhagan tahay soodigan 30 sano wax ku heli la maad aniga si ka soo raacdo calankaygan tawxiid ku qoranyay ma dhinaca islaamnimada ku soo biirtay oo calankan islaamnimada soo raaci waar adaan ku soo raacayo dhinacaagan haynaadare ashahadada ay qabay imka caawana cambulada iyo soorta gurigeyga ku leedahay imo nin rageed saasa ka rabatay u sheeg dhamaan wada qada wada kala oo dhan oo wada sheeg asxaabtada igu haleeban kuri dhamaan walaalahayga qadadweyn oo dhan hadan wada gaarsiinaya ururkii dhiiqiyo dhooban وأنا هذا واحد كويدي وما حد يعرضها دجال كبر عضل مريال شيء ما عنده ودني سيل عبيد المرياني
dee waxa weeyaan diyaaradii lagu weerarayay Yaman xuutiyiinta iyo waxbaa lagula dagaalamaya carabta markaa diyaaradahan wadata oo sootii maan dhaweyd la lahaan iyo xuutiyiintu gantaalay ka rideen magaaladooda markaasay la caasimadii Sacuudiga ku garaacayeen arway ku garaacayeen oo leeyay la Riyaad bay ka shanqaraysan kurniyow waar soo moogid caasimada carabta Sacuudiga waxa uga dhow Hargeysa Berbera uga dhow xuutiyiinta waa runoo de Sacuudiga Hargeysa uga dhow de waayahay dadka ilaa Sacuudiga garaacaya caasimadoodii oo Hargeysa uga dhowday maxaa wada kula culooday inaan ma garanayo de waa horumarka daraadii baan la culoobay la socday de waayay horumarka daraadii ba dadkaaga u baabin waayay waa raba baan iska daaniyo sidaan aqoonsiyo de wax walba ku helaya iyo horumar qurayo de waayay horumarka yaa aqoonsiga marka soo qaado yaa horumarka yaa aqoonsiga ku raaxaysanaya isticmaalaya maqbuuraha arba garanaya ni wallahi maxaa de ma garanaya soodigan cadawgoodii dekada ka kireeyay ku wuri bartanka weerara niyow haay caalamka dhanbe ka wada socotaayo de waa iska caadi dekadaha waa la wada kareenayaa de waxay doonaan ku sameeyaan naga daaniyo warniyo heer waxaan ku sheegaa war ilaa burco ilaa saylac diyaarada la dul keensaday war berberana waa adiga arkaya oo saldhig baa laga dhigta wax laga weerari magaalooyinka kalena way soo raaci doonaan balad xaawana waa la tagay muqdishona dawlad baa laga dhaxaburay marka waxbay nooma harin dhul nooma harin wayna la dhacay commentiyaduna isku cayno war waa runtaaniyo ana halkan baan qadaadweynta ka soo haynayaan kolba video kugu soo caay adada waxa doonto samee mayo waa sida weeyaan mar hadii dhulkeenina laga dhacay de ana marqaan laantaasaan ku haynaya ana qadaadweyntaas uu wacay oo de Facebook-na isku dhaxayno ila dhulka wala laga qaatay de qorshe ka khatarsan baan jirinba hayna la mariyo inaguna aan ismarino bas inagu kala wad meesha markii gurigaaga joogtana mobilkaas uu iga soo caayo live fi soo gal markan de meelaha iyo maqaaxiyaas ku aragnana de ayna ku calaacalayno shaha ku cabna sida dhulkeena looga dhacay ayna waxba ka qaban karin waa sida weeyaan nabadii